kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiiba ku soo dhawaada barnaamijka muuqaalka bulshada waa barnaamij toddobaadkiiba maanta oo kala aan idinkaga soo tabino xarunta dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxaana ka dheehataan telefishinka Universal barnaamijka muuqaalka bulshada toddobaadkan guud ahaantiiba daawadayaal waxa aan kaga hadli doonaa siyaabaha kala duwan ay wax u bartaan dadka naafada ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho sida aan wada ognahay dunida guudkeeda waxa ku wada nool dad naafa ah iyo dad ilaahay uu lixaadkooda u dhameystiray labadaasi nooc ay bulshada isugu jirtana waa kuwa u siman dunida guudkeeda wax u qabashada horumarinta bulshada iyo naftooduba wadamada qaar ee dunida waxaa laga sheegaa in ay dadka naafada ah ku dhibaataysan yihiin dalkani Soomaaliya waxa uu ka mid yahay dalalka ay dhibaatada ku duloodeen isla markaana inta badan dadka naafada ah laga sheego xaalado ba'an oo ay ku nool yihiin Soomaaliya oo lagu tiriyo wadamada ay la dageen colaadaha abaaraha iyo faqriga ayaa dadka naafada ah ama bulshada lixaadkooda oo alla uusan u dhameystiran waxa ay u nool yihiin siyaabo kala duwan tan iyo markii ay dhacday dawladii kacaanka 1991 ma aysan jirin goobo ay wax ku bartaan dadka lixaadka la laakiin haatan oo laga dareemay dhulka Soomaalida gaar ahaan caasimadda Muqdisho waxa naafada ay ku dhiiradeen in ay wax bartaan iyagoona ka dhiidhiyay oorahdii ahayd in dadka lixaadka la aan waxba baran naafada ayaa iminka ku howlan barashada aaladda casriga ah ee kombiyuutarka aniga oo ka duulaya amurahaasi ayaan booqday dugsiga ay wax ku bartaan dadka lixaadka la ee dugsiga degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho hamiga mustaqbaleed ee waxbarashada dadkaasi lixaadka la ayaa waxa ay tahay in ay ku shaqeystaan adeegsadaan aaladda casriga ah ee kombiyuutarka kolkii aan booqanayay waxa ay koox u isticmaalayeen kombiyuutarka waxayna baraatikaynayeen ama tusaaleynayeenba casharada kombiyuutarka ay qaataan Xalimo Caafi waxa ay ka mid tahay gabdhaha naafada ah ee barta aaladda kombiyuutarka waxaana aan kala sheekaystay heerarkeeda waxbarasho alxamdulillah rabbil caalamiin waa barna alxamdulillah laakiin hadda waa jecelnahay inaan wax ku qabsano waana la baraa hadda 2 bilood aan dhiganaynaa inta noo dhiman waxaan jecelnahay inaan aan ku dadaalno aan dhameystirno dabeedna aan rabno inaan wax ku qabsano inaan ku shaqeysano oo hay'adaha dawladda iyo ay wax nagu gacan qabato saasaan rajeynaynaa waxbarashadan aad baranaysaan gaar ahaan aaladda kombiyuutarka aalad casri ah weeyaan horena waxa u sheegtay inaad wax soo barateen oo hay'ado kala duwan la soo shaqeysay marka waxaad codsanaysaan Soomahan in hay'adaha dawladda kuwa maxalliga ah kuwa lokalada kuwa sida gaarka loo leeyahay inaad shaqooyinka heshaan maadaama aad tiin dad naafa ah oo wax bartay mudnaantii la doonayayna la siiyo anaga maqan tahay waa jecelnahay in in muhiimadda ugu weyn waxay tahay horta in la intiqaafo ixtiraamba ma jiro dawladdan waxaan u maleynaynaa inaan aad uga hooseynabo oo muhiimadda xagga naafada ama ka hooseynabo wax noo qabto iyo wax noo yimaado iyo waxna waxna weydiiyay iyo xagga xataa gawaarida aadan ugu dhibanahay shirkadaha aadan ugu dhibanahay marka intaas oo dhan waxaan ka rajeynaynaa in dawladda naga gacan qabato ka waran dhinaca shaqooyinka oo kalante ma jiraan dad idin ka mid ah oo shaqeeya waa jiraan wiilashan oo aydan sooda shaqasiisay oo sariflayaal ah oo hadda way joogaan oo meeshan wax ka barteen oo shaqo la siiyo shirkadan Hormuud ee shaqasiisa waa jiraan oo ka shaqeeya aaladdan kombiyuutarka wax inta ka barteen haddana shaqo gelin howlgelin ay siiyeen okay aad u mahadsan tahay aaladdan kombiyuutarka waxa weeye horta anagu magaalada goobaheeda kala duwan aan degannahay markaan aragnay cidna support garaynaysa oo gaar inaysan jirinin dhalinyaradan isku hawshay oo maaragtay dadka bulshada naafada ku wacyi gelisay inay wax bartaan ayaan bilownay 2 bilood ka hor aan bilownay haddana waa u jeedeen casharada noo dhigan meesha ay marayso waa aad iyo aad u wanaagsan yihiin waxa kale oo meesha yacni xaadir ku ah oo kale oo dadkan maaragtay u diyaarsan inay bartaan harqaamo fara badan haddii loo helo fasiilaadkii dadkaas ay wax ku baran lahaayeen waayo
waxbarashadu qofta naafada haddaysan gaadiid badan waa ku adagtaa sababtoo ma heli karto had iyo jeer gaadiidka qaadi lahay gaadiidka dalkeena ka dhisan ka shaqeeya uma dhisna gaadiid dadka naafada inay raacaan ama se dadkeena Soomaaliyeed uma bisla inay taakuleeyaan qofta naafada oo ay ku taakuleeyaan xagga aqoonta ah waxa laga yaabaa baabuurka dureeran yahay inuu ka cararo xiisadiina ay maaragtay ay gabaabsi ka tahay baabuurkana uu yiraahdo warayta waa qof naafada culus qaadi maayo ayadana caqabad naga haysata xagga waxbarashada waaye hadda Allah ku duwo dadku inay fahmaan waxayna u baahan yihiin dadku waxay gelin bay u baahan yihiin culimo adduunku hadba waa hadlaan laakiin tii bulshada ayaa meesha ka maqan in dadku fahmaan dadkan in la taakulayntu ma aha dadka in 2 loo taago dadka waa in laga dhisaa aqoonta markaas ayay waxay noqon kartaa qof is anfacda oo maaragtay hadday awlaadeeda tahay hadday qarabadeeda tahay hadday dalka tahay howlaha adeegyada waxbarashada shaqooyinka xilalka iyo adeegyada kale ee bulshada caalamka waa kuwa dadka lixaadka la iyo kuwa dadka ay u dhameystiran yihiin lixaadkooduba ay u siman yihiin waxtarka dalka balse Soomaaliya ma dhicin xuquuqdii ay lahaayeen dadka naafada ah in ay helaan haddii ay noqon lahayd shaqooyin xilal iyo adeegyo kale haddii ay heli kari lahaayeenna ay ahaan lahayd mid gabi ahaanba ay gutaan dadka naafada ah Maxamed Cali Faarax Xaliimo Caafi iyo Maxamed Salaad intuba waxa ay ka mid yihiin bulshada naafada ah ama lixaadkooda u dhameystirnayn waxaana ay ka cabanayaan in la duudsiiyay xaqii iyo xuquuqdii ay ku dhaxlahaayeen ummadda Soomaaliyeed waxaana ay hoosta ka xariiqeen in ay yihiin dad wax bartay oo aqoonta ay barteenna ku shaqayn kara goobaha ay ka adeegtaan bulshada ee suuqyada dhismayaasha dhaadheer baabuurta dadweynaha iyo mararka qaar ee la xiro wadooyinka magaalada Muqdisho ayay sheegeen bulshada lixaadka la in ay dhibaatooyin badan ku qabaan waxaana ay sheegeen in howlo badan oo ay qaban kareen aqoonna ay u lahaayeen looga reebay darteed in ay yihiin bulshada lixaadka la haddan ka hor waxaan u tagay aniga nin ganacsadaha oo lacag loo qarabana aqoonta imtixaan oo nalka qaaday aniga iyo nin kale ana imtixaanka ku guuleystay markaas wuxuu yiri walaalow si kale ayaan wax ku siinayaa laakiin ninka lixaadka qaba ayaan shaqada siinayaa oo kaalinta labaad galay maxaa dhacday aniga dawrad kuma soo aadin shaqadeeda aqoonteeda inaan ku shaqaystaan aan maanta u soo labistay imtixaanna waa ay qaatay waan ku guuleystay maxaa koos kareeyay ninkaas maaragtay inaad siiso anigana aad diido wuxuu yiri wallahi oo ninkaas markii faylalka iyo wax la soo qaadayo waa soo qaadan karaa laakiin adiga xogaa nin nafaatay wax ma qaadi kartid waqtiguna waa iska colaado niyo walaal waxaan jeclaysan lahaa si kale ku taakuleynaya waana aad baan maaragtay moraalkayga halkaas oo si u noqday hadda marka waxa la rabaa barnaamijkaas asaga ah in meesha laga saaro oo dadka Soomaaliyeed dadka wax yaqaaneen naafada ay dhahan aniga dukaankayga meeqa ka shaqeynay 10% ahaan 3 kamida waa inay naafo noqdaan wasaaradda markay qaadanayaan konta hadda wasaaradda dawladda meeqa u shaqeysa kumanaanku waa fadhi ku dir waxay dalka u qabtaan male shaqaalahaas haba yaraatee wax naafana lagu marko يعني من جامعه قنت سكوت تجي لو ما هن وأسيق يعني ما سكلا كوسوق لكن هذا يرات منان نافو اللي يراد ورنافو بقول كيف أنت سوين يرتا أو سر صارت لمارك مركا قنت أنا جا وندلنا كمبيوتر سكدا في نوع كسر حتى بيلون نما إن برنو مارك تدوير عروق على سنة ديار هاي بابور تتا وحوي شركة بابور تكنا إن نلانو ور درولانا هاي نافنا وانا percentage keena shaqa baabura ilaahay idin siiyo baaburta dad daro noogu dhiibo dad naafa waxyaalahaas inaan u doodno diyaaraan u nahay si hadda in la caawiyo oo maaragtay wacyigelintaasna la ka caawiyo oo meediyaashu naga caawiyaan oo telefishinka ugu horeysa maanta yani fursadan siiyo oo naga caawiyo aad baan u soo dhaweynayaa waana mahadsantiin horta marka hore waxaa fiican inaan helno ixtiraam oo la soo dhaweeyo oo dawladdu wax noo qabato kadib nin walba wuxuu ku shaqeyn karo la shaqo geliyo soo waxaad gartama shaqo gelin iyo muxuu ahaa shaqo abuuris lafta naafada wax yaqaana jirto oo wali aan shaqeyn ay hadda xaalad kombiyuutarada ku shaqeysto oo yaqaano oo shaqo dawladda ay shaqo siin dad waxa harqaan hadda bartay oo muxuu ahaa gabadh islaantan ay ka mid tahay gabadhan Faadimo ay ka mid tahay oo harqaanka la baray oo iyadana wali aan ku shaqo gelin waxa ma la haysto xataa shaqo xataa heesh inta xataa inaad shaqeysatid wixii aad haysanin oo ku shaqo gelin lahayd taakuleentaasna waa loo baahan yahay horta dawladdu waa aad iyo aad nooga indhaxiran tahayba waxa ma naqaan waxay aan galabsanayna anaga dawladda xaqad xuquuqdiya dawladda ma ka dhimanna bood sideed banaanbo ma santahay okay dadka shaqooyinka bixinayo
ama meelaha dadka laga shaqaaleysiiyo reality naafada kuma jirto runta marka loo hadlo hal qof oo naafaa kuma jiro taasna laba siyaabood sababaysa taas marka midda koowaad waxa waaye naafada waa dad aan wax baranin sababta wax u baro waayeenna waxa waaye shaqaysa helin maadaama wax loo bartaa in lagu intifaaco waxbarashada oo qofka maxaan ku yidhahdaa waxbartay waa inuu waxbarashada soo bartay waa inuu implement gareeyaa oo isla marka shaqo uu ku helaa laakiin haddaad shaqo aad ku helin oo ictiraafsan tahay inaad wax shaqo aadan ku helin haddaad wax baratid waxa waaye waxba qarash iska khasaaran uu isleeyahay qofka naafada marka naafada inta badan dad wax bartay ma aha midda labaad oo keenaysa inaan la shaqaalaysiina naafada waxaa waaye meebta ka hore jiro dadka soomaalida ay sameeyaan oo qofka naafada haddii xataa ku guulaysto imtixaanka waxa laga yaabaa inaan la siinin shaqadiisa aniga kula hadlayo way igu dhacday kula hadlayo justi sanado ka hor waa igu dhacday inaan qolo shaqo ka codsaday shaqadii marka hore dhiirigeliyeen dheen waa lagu siinayaa then markii oo maalmihii shaqada bilaabi rabayna la yiri laajli naafa aad tahay shaqadaas u weys ya naafa aad tahay darteed aad shaqadaas u weys waxyaabaha igu dhiirigelinaya marka aan bulshadii naafada ah inaan advocacy ku sameeyo taas ayaa ka mid ah iyo waxyaaba lamid ah oo kaleeto marka shaqosiinta kaleeto way jirtaa markii shaqooyinka hadda UN jobs kale markuu shaqo soo dalbado meesha ugu hooseysa waxaa lagu soo qoraa sometimes waa lagu dhiirigelinayaa haweenka iyo naafada ayaa lagu soo hoos qoraa meesha ugu horeysa haddana waxaan is leeyahay arrintaas inaysan waxba ka jirin ama aaminsanaa oo qofka naafada aan wax shaqa break bal looma qabtaba albaabkana lagama furo waardiya joogo waardiyahan oo concept wuxuu ka qabaa fikrad wuxuu ka qabaa qofka naafada soo gasho qof tugsana inuu yahay marka u soo dhawaa kushin oo jaab ka soo baxana waa ka horkeenaya taas sumcad xumo ah qofka naafada aniga kula hadlay ugu dhacday in kushin la isu taago dad badan naafada way ku dhacdaa joogtay ugu dhacdaa waa kii soo laabto waa tiro badan waay maxaa yeelay waxa la aaminsan yahay qof dawrsana inuu yahay marka albaabka iyo shaqada iyo xafiiska in loo ogolaanina laga yaabaa qofka hadduu naafiya sida ay mar kale barnaamijka muuqaalka bulshada u sheegeen maxamed salaad iyo maxamed cali faarax oo codsi u jeediyey shirkadaha xawaaladaha oo ay sheegeen in dhismayaasha dhaadheer oo ay ku shaqeeyaan marka ay ka adeeg doonanayaan ay dhibaatooyin badan ku qabaan waxaa jirta wiigi lasoo dhaafay sida dad badan nagala war haystaan annaga inta badan waxaa isticmaalnaa aaladaha social network oo baraha bulshada iskugu timaado ayaan isticmaalnaa sida youtube-ka iyo waxaan isticmaalnaa facebooka twitterka iyo website aan leenahay ayaa jira ayagaan isticmaalnaa marka sida laga warqabo isbuucii lasoo dhaafay waxaan sameynay war saxaafadeedaan qornay oo aan ugu talagalnay dadka injineerada dhismayaasha sameeya iyo dadka milkiilayaasha dhismayaasha waa successfully already saxaafadda inta badan waa loo qeybiyey waana la soo daayay mediaha inta badan waa laga soo daayay war saxaafadeedkaas ayaa wuxuu ahay in dadka injineerada ah aysan go'doomin walaalahooda naafada Soomaaliyeed ah marka ay guri dhisayaan milkiilaha guriga inay u sheegaan inuu ku daro xuquuqdii dadka naafada ah hadda wheelchair-kaas ganjeelkayga markuu soo galay aniga wuu soo gali karaa caadi ilaa inta meesha fadhiya wheelchair-ka way iman karaa laakiin guryaha qaar wheelchair-ka ma soo gali karo albaabka ma soo gali karo wheelchair-ka sanda meelaha dhisan oo ganacsiga kaleeto ma tilmaamayo hadda hay'ad hebel iyo ganacsi hebel ma dhahayo laakiin si overview ah aan samaynayaa inaan la foolno kaleeto xawaaladaha kaleeto kama qaadan karna adeegeena si dhammaystiran qof kasta meel dheer oo qofka istaagaya kaliya ku jimaysan tahay waxaan rabnaa inuu qofka oo ka qayb qaadan karo si free ah asoo aan qof ku xirnayn laakiin hadda marka aniga tago xawaalada waa inaan qof ku xirmaa waxa khatar ku sugan in saxiixayga xataa qof aan u dhiibo inta saxiixo inaan qof u dhiibo oo qofkaas oo ii soo qaado aan hoos fadhiyo maxaa yeelay meel qofka naafada oo gaari karmaa wajigiisa ku filan maaha markaan soo gurguurto aan hoos u istaago waa inaan iraahdaa iigu sheeg qofa hoos fadhiya dheh waa inaan iraahdaa taasna xogaayo waxa waaye waa waxa aan rabnaa aan ka dagaalamayno inay baaba'do waaye waxaan rajaynaynaa inay baabi'i doonto xawaaladaha waa si dadban iyo si aan dadbanaynba waa ugu gudbinay waa ugu sheegnay inay wax ka bedelaan barnaamijkaas qaarkood way naga aqbaleen markaa ku dhiirigelinay because dadka ma xasuusna hore waan kugu sheegay dadka ma xasuusnaba inuu jiro barnaamijkan oo dad naafaa adeeganaya ay soo geli karaan meesha maba xasuusnaba mid kale waxaan rabaa inaan kuu sheego statistics oo aan hadda show ma dhihi karo laakiin average la sameeyey
oo WHO inay ku jirto iyo hay'ad kaleeto Swedish iyo qaar kamid ah UN ka ay sameeyeen jiro anagana aan si tartiib ah ku ogaanay naafada percentage-ka dadka Soomaalida 15% waa bardayna dad cusub ku soo biiraayo maxaa yeelay qaraxii dhacaabo qof naafa oo dhalaya maanta hal qarax haduu dhaco markuu yartaa markii ay 10 qofood ku dhaacmato 5 of them naafay noqonayaan 5 kamid ah naafa groupkii social groupkii naafada bulshada naafada ku soo biirayaan marka maadaama wixii lagu soo biiraayo dadkina ay maalin alkeen naafadii soo badanayso waxaan rabnaa naafada lacagooda taa adeegeedo khidmadoodana xaq u leeyihiin in la helaan dad tuugsanaya maahan dad inay kalmay dhahay maahan khidmada service-ka u baahan yihiin waa inay helaan soo istaagaan inay gataan because of dadkii soo badanayaan naafadii wadanku way ku soo badanayaan marka waxaan rabnaa inaan kaga faa'iideysano barnaamijkan muuqaalka bulshada oo aad iyo aad u qiimo leh oo anagoo ogeyn maanta noo yimid xataa aanan ku talagelin nagu soo kordhacay dad ku dhiiraday arkay meelahaas kale naga soo ogaaday waxyaabahan qabanayno na soo booqday noo yimid xafiiskeen noogu yimid aad iyo aad ay ugu mahadcelinaynaa TV-ga Universal iyo wariye okay cameramanka dhammaantiina waxa waaye waa qaybtii idinkaga aadanayd laa shukra calaa waajibi dhahaan Soomaalida iyo Carabta dastuurka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya ayay dadka lixaadka la ku tilmaameen mid aanan lagu jaangooyin xuquuqdii bulshada naafada ahayd waxaana ay hoga tusaalayeen inaanan dhicin in laga talageliyo maamulada dalka dadka lixaadka la gaar ahaan maamulada degmooyinka Muqdisho ee dhawaan la magacaabay taasina ay ka mid tahay bay yiraahdeen in dadka naafada ah xuquuqdoodii weli ay maqan tahay waxa weeye fahamku waa qaali horta waxa weeye ummaddu hadday isku timaado ama wax qoran ay ku heshiisaa ama waxay ku heshiisaa ballan anaga institutionka dalka u degsan ma qeexayo xuquuqda dadka naafada oo tafaftiran ma qeexayo taas waxa koos gareeyay yaani waxa dejiyay dad lixaad qaba oo garanaynin dhibaatada qofta naafada haysata taas marka waxay meesha ka saartaa dhammaan xuquuqda qofta naafada ay lahayd haday dhisma tahay ay dhismaha ku lahayd haday caafimaad tahay caafimaadka ay ku lahayd haday wadooyinka hada wadooyin baa la dayactiraya marshibiyadi aadan wheelchairskaaguna ka degi karinin mootadaaduna aysan ka degi karinin ayaa jidkii hadda laga dhisay hadda jidkii naloo dhis laakiin dad uu dhibaato u keenay jidkii waa naloo dhisay laakiin dad uu dhibaato u keenay dadku dhibaato u keenay waa dadka naafada dawladdu marka ma aysan sameeynan kama aysan taxadirin oo ma dhihin war dadkan naqshadaan marka la sameeyo ha lagu daro dadka naafada meesha marshibiyadiga ay ka fuulay lahaayeen ha lagu daro koow meesha mootooyin kala degi lahaayeen ha lagu daro waxyaabahaas oo dhan institutionka ayaa qeexi lahaay sharciga dalka u degsan ayaa qeexi lahaay markaan baarlamaanka la kulanana yacni waxaad moodaa inuu yiraahdo hor dhigo caqabad ah naafadu waa inay ka soo heshiisaa arrimaheeda gaar ahaaneed war dalkaanu intaasoo madaxweynaha ka jirta dadka lixaad qaba waa inay arrimahooda gaar ahaan ka soo heshiiyaan lama yiraahdo waxa loo sameeyay sharci ay ku midaysan yihiin una tilmaama qof walba xuquuqdeed annagana waxaan u baahanahay sharciga dalka loo dejinayo in aan ka qayb qaadano xuquuqda aan leenahayna qofta dhakhtarku wuxuu weydiiyaa meesha xanuunaysa ayada garanaysa markaas uu weydiiyaa qof lixaad leho meesha maaragtay naafada dhibaysa garanayna haddii wixii qorqorto annaga baahideena ma dabool kariyo saas leeyahay waxaan soo jeeday ilaa mar labaad soo jeedinaya anoo ka faa'iideysanay fursadan qaaliga war institutionka ayaa annaga xuquuqdeena dhamaystiri kara dalka kale u degsan haday mid shaqo tahay iyo haday mid xilo tahay iyo haday mid wadooyin tahay iyo mid caafimaad tahay haday mid gaadiid tahay asaga ayaa qeexaya waana ku doodi karnaa aqoon iyo maaragtay aqal anigu doodna ilaahayna siiyay qoftii ku qaldanta jeedada hadda matalan ka soo qaad xawlaadaha haddii wax yar oo fiican lagu soo diro xawlaada waa tuugsan waxa leedahay war walaalo adaa lixaad qaba iga soo qaad warkaas maanta meeshaad nusaac uga adeega lahayd 3 saac inaad fadhiso oo qofba tiraado war ninkaas meesha fadhiyo muxuu rabaa mid kun shilin kugu soo ordo yiraahdo war kun kana qofta lacag ma tuugsanayo ma dawarsanayo mid ku yiraahdo mid ku warwareejiyo maanta dhan waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo maaragtay anaga xadgudub nagu ah qofta muwaadilka naafoobay waxa loo baahan yahay in karaamadiisa la ilaaliyo oo lagu xadgudbin ma ahan anaga waxaan codsanayna ma ahan hanna la siiyo dhaqaalaha la siiyo laakiin waxa weeye karaamada ilaahayna siiyay in la ku dhowro way anaga ku shukr naqayna naafnimada ilaahay naga dhigay waa mid ilaahay uu shukr naqayna alxamdulillah rabbil alamin waa agteena barwaaqay ka taa qofta lixaadka qabana inay u fahanto waa shay lagu itixaamay qofta lagu looma weyn gacnimo looma weyn indana la ana ilaahay uma weyn ilaahay tujar weyn laakiin waa yaa lagu itixaama
waxaa lagu itaamaya qofkii lixaadka ilaahay siiyay ayuu ku itaamaya annagana waxaan ka rabaa waa samar waan ku samarsanna saas la adliga dalka waa naga dhaxeeya shaqadu waa naga dhaxaysaa xilku waa naga dhaxeeya hadda guddoomiyaha degmooyinka magacaaba ay ka soo qaad inta 17 degmo gobolka Banaadir loo magacaabo wali ma aanan maqalnin naafaha maaragtay ka qayb qaadanaya shaqooyinka gobolka Banaadir loo magacaabo la ilaa waana meesha ugu naafooda badan intaas oo kun oo naafaha ku nool waana dad aqoon-yahaneen jaamacaday ka soo wada baxeen oo waxa weeye waqtiyada hore dawladda hore ka faa'iideysteen ama si diaspora ahaan ay u yimaadeen laakiin waxa lagu takooraa waa naafnimadeeda marka waxyaabahaas oo dhammaan dalka ka jira anoo fursadda marka ka faa'iideysanaya waa baaq ku wajahan dhammaan cid kasta ee ka damqanaysa yacni in ay dadkaas naafada ah wax u qabato wax qabadku ma ahan kun shil hala siiyo waa mar labaad aan ku celinaya oo mar saddexaad aan ku celinaya waa in qofta karaamadeeda la ilaaliyo xuquuqda ay dalka ku leedahayna qof walba waa in oo ay ku fikirto waa qofta naafada maxay xaquuq ku leedahay waxay ku leedahay xaafiska markii soo gasho oo aad mas'uul tahay in aad si bulshada ka duwan aad u karaamayso tiraad okay adaan ku fadhiyaa meesha adaan ku shaqeynay maxaad u baahan tahay waxaan iyo waxaan u baahanahay shaqada noocan aan u baahanahay shaqada in laga howlgeliyo waxyaabahaas oo dhan weey haddii aad guri dhisanayso oo dabaq 20 bilyan ilaahay dhaqaale ku siiyay inaad fikirto tiraad dabaqan si dhib la'aan qofta naafada waa inay uga adeegataa ilaahay xoolo ku siiyay laakiin haddana yaad u dhisaysaa ummad Soomaaliyeed yaa kamida dad naafaa ka badan maxay u baahan yihiin dhib la'aan inay uga adeegtaan intaas oo dhan inaad ilaahay ku faansiyo marka waxaan dhihi karaa Allah faansiyo Soomaalida guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal barnaamijka muuqaalka bulshada inta uu soconaya waxaa idin daadahinaya aniga oo Cabdicasiis Ibrahim Axmed Okeya dhanka kamaradana waxaa iga saaciday maada ka gaadhe saaxiibkay Cabdiraxmaan Jaamac Salaad tan kulanta dambe intaan dib ugu kulmi doono barnaamijka muuqaalka bulshada waa bahda barnaamijkoodii leh sidaas nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.